السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومركل أي مقال عصب مقال كان وحا كسو قدبينيا أو كستابسين يهي سيدا لو ترجمو صور هذا قرالك كود القرآن إما تفهمين تصالحان صور كانت الشاشة كاغا مقضى وحا كود القرآن قرال لوقد كلا أما لوقدان لوقد هذا كو قرآن هذا بسن مركا القرآن كان ترجمة أما آن وهلا معناها أو كسابسن يهي أنيغو لوقديدا ku ogaanaya ama translator wax loo yaqaano kusoo dhawo muuqaalka. Okay, marka ugu horeysa waxa aad markaasi u baahanaysaa in aad soo dhowraysato Google Photos. Google Photos muxuu yahay? Google Photos waa photoska caadiga ah ee markaasi Google-hu u leeyahay oo mobile walbana uu ku jira bas laakiin update gareyso version-kii ugu dambeeyna ku update gareyso haddii uusan ku update gareysnayn mobilada qaarkood ama kuwii hore ee Android-kooda uu hooseeyay ama ka hooseeyo 6 ama 7 uu ka hooseeyo ama 8 ka hooseeyo laga yaabaa inuu ku shaqeyn laakiin haddii aad sidato 9 ama 10 haddii aad sidato uu ku shaqeynayaa waana nasiibkaagii marka aad soo update gareysato Google Photos waad soo gali doontaa gudaha ayaad soo galisaa okay Google Photos ma soo furaya Google Photos markaan soo furo hadda sawir baan halkan soo qabanaya oo qoraal ku dul qoran yahay aan loo qadida ahayn waxaan doonayaa inaan turjumo oo aan ka dhigo Soomaali si aan u ogaado macnaha uu xambaarsan yahay halkan waxaa ku jira qoraalla markaasi aad iyo aad u tiro badan oo qaarkoodna ay Carabi yihiin qaarkoodna ay markaasi English ku qoran yihiin okay mid baan soo qabanaya markaasi kamid ah qoraalada halkan markaasi ku dul qoran ee ah marka Carabiga aan mid soo qabanaya okay kana baan soo qabtay tusaalahan kan markaan soo qabtay waxa aan doonayaa qoraalkan halkan ku qoran ee khaaf عليك min xusn dunya min khawfiha wa man fajaa'iha saghira ay ku qoran tahay in aan Soomaali u turjumo kadibna macnihiisa fahmayaan doonaya maadaama aan luqada garanayn okay halkan yara ugu hooseysa ee waxa yara kamarada u eeg ay ku qoran tahay ayaad ku dul dhufanaysaa markaan saa ugu dul dhufto halkan waxa uu markaasi uu soo qabanaya qoraalkan meesha ku qoran ayuu markaasi baaraya wadiga arkay inuu highlight wada saaray okay highlight buu wada saaray haddii aad rabto qoraalka meesha ku qoran in aad markaasi explore gareyso oo Google-ha ka raadiso halkan aad soo jiidaysaa sawirro fara badan oo qoraalkaasi uu ku dul qoran yahay ayuu ku soo saaraya okay sawirrada kale inaguma baahnin waxaan u baahnaa inaan turjurno Carabigan meesha ku qoran maadaama uu sawir yahay oo qoraal ahayn halkan yar baad ku dul fanaysaa saddexdan xariijimood ee koonaha yaala dan halkan saddex xariijimood ku dul fato halkan waxa ku jira adeeg tiro badan halka ugu soo sokeeya ee ay ku qoran tahay ama Google Translate icon-kiisa wad garanaysaa ayaad ku dul fanaysaa ee halka ay ku qoran tahay dan marka aad saa ugu dul fato waxa aad dooranaysaa luqadda uu kugu turjumay hadda wixiiba English buu bedelay I fear for you from the sadness of the world from is fear wuxuu ugu bedelay English okay halkan ay ku qoran tahay Arabic and English aad kala bedelaysaa halkan markaad soo ugu dul fto Englishka waxa aan ka dhigayaa Soomaali baan halkan ka dhex raadinaya markaa Soomaali baan ka dhigayaa Soomaali waa kan Soomaali baan ka dhigay Soomaali marka ka dhigay hadana tan kale aan ku dul fanaya tanna English baan ka dhigayaa waxa ka dhigayaa Carabi maadaama qoraalku Carabi ku qoran yahay apply baan oranayaa dan wadiga arkaya waxiba waxa uu ka dhigay Soomaali waxaan kaaga baqayaa murugada adduunka iyo cabsidiisa oo murugadeeda yarna waxaan kaaga baqayaa in qalbigaagu uu jabiyo oo waxaan ka baqayaa laabtaadu inay xanaaqdo waxaan ka baqayaa in qalbigaagu kugu filnaan doonin inaad ladnaato maxaa yeelay waxaan ahay qof aan waxba sameyn karin laakiin aan aad baan ugu jecelahay marka qoraal kasta oo sawir ku dul qoran sidaas ayaad markaasi u turjumi kartaa hadda haddii aan mid kale soo qaadano oo markaasi English ku qoran ama luqadda Carabiga ku qoran haddii aan soo qaadano hadda halkan waxaan ka dhex raadinaya marka sawir uu ku qoran yahay English halkan ayaan markaa ka dhex raadin doonaa tusaale ahaan hadda waxaan soo qabanayaa mid uu English ku qoran yahay soo raadi waa kan kanaan hadda soo qabanaya no person knows what he will eat tomorrow okay halkii reed baan ku dul dhufanaya halkii markaan ku dul dhufto halkii translate-ka ahayd ayaan bedelayaa maadaama uu Carabi ku soo gareysna markii hore Carabi iyo Soomaali hadda English baan ka dhigayaa ama si automatically isaga ayaa u turjumaya halkan waa ka Soomaali ka dhigay waana ayad quraana suurada 2 sanad ayada 4 sanad ku jirtaa qofka
ama markaasi sidii saxda ahayd ee markaasi Soomaaligan waxa uu u turjumayn haddana waxyaabaha qaarkood waad ku turjuman kartaa oo markaasi wad akhrisan kartaa micnahoogana waad markaasi fahmaysaa. Okay, laakiin waxaan kugula talinayaa inta badan in aadan aayadaha quraanka ku turjumin. talo ayaan ku siinayaa in aanad inta badan aayadaha quraanka ku turjumin. Sida hadda halkan kaaga muuqata waa qalday maadaama aayad quraan ay tani tahay. Marka waxaan kugula talinayaa inta badan inaadan aayadaha quraanka ku turjumin ee aad waxyaabaha kale ku turjunto oo Englishka ah ama Carabiga ah ama luqad kale haddii aad u baahantahay oo Faransiis ama sidoo kale Swedish ama Spanish ama noocyo kaleba. hadda mid kale aan eegi doonaa oo halkan ay markaasi Carabiya aan eegi doonaa. Okay, halkan waxaa ku haya sawirro aad iyo aad u tiro badan oo markaasi qoraallo xikmad ah ay ka markaasi ka buuxaan oo Carabi markaasi English isugu jira ayaa halkan ka buuxa. haddaba halkan waxaan markaasi soo qabanayaa sawir kale ama qoraal kale oo ay ku dul qoran tahay markaasi Carabi caadiya oo aan quraan ahayn. Okay, kan haddii aan soo qabto الفقر الحقيقي هو أن تستقتل ما في يدك وتستكثر ما في أيدي الناس. markaasi Carabiga aad iyo aad uma baasi moogtay marka ay la yaabina halkan waxa soo qabanaya translate-ka ama isaga si automatically u translate kareynaya haddii aan marka qaybtii translate-ka tago qaybta ku dulfanaysa u translate kareynaya waka automatically sabalnimada dhabta ahi waa si aad u qabato waxa gacantaada ku jira oo aad markaasi ku dhufto waxa ku jira gacmaha dadka kale. markaasi si caadi ah ayuu markaasi kugu turjumaya oo Soomaali buu ka dhigay wadi arkaya qoraalkii Soomaali buu ka dhigay sawir kasta oo wax ku dul qoran yihiin aan luqadaada ahayn si dhib yar ayaad markaasi u turjumi kartaa oo markaasi sawirkii macnihiisii u fahmi kartaa iyo wixii uu xambaarsan yahay. laakiin mar labadan kugu caliyay quraanka ku turjumin maadaama sida saxdeed aanu markaasi u turjumayn. waxaan rajaynayaa inaad muuqaalkan ka faa'iiday haddii aad wax uga faa'iiday la wadaad walaalaha si iyaguna uga faa'iidaystaan tan iyo muuqaalka dambe intaan isugu iman doonno. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.